Asalaamu calaykum. Waxaan rajeynayaa inaad fiican tahay meel walba ood iga daawanaysid hadda. Haddii lagu dooransiiyo sharaftaada iyo naftaada, waa laba daran mid dooree kee dooran lahayd. Waxaa suurtagal ah hadalku inta uusan afkayga ka dhammaanin. Su-aasha inaad ka jawaabtay ood mid dooratay. Balse waa su-aal u baahan inaad ka fikirto ka hor inta aadan dooran. Nafta wax ka qaalisan runta marka laga hadla ma jiraan, laakiin aadamuhu in badan naftiisa wuxuu dhaafsadaa sharaftiisa si uu sharaf ugu dhinto hadduu dhimanaya xataa. Ninkan aan maanta ka hadlayaa wuxuu doortay sharaftiisa. Ninkan waa aabba leh 4 ciyaala, 3 gabdhood iyo wiil. Gabadhiisa weyn waxay jirtaa 19 sano, labada gabdhood ee kalena iyaday hoos uga yar yihiin. Wiilkuna wuxuu jiraa 6 sano, waa ilmo yar. Waa bartamaha 80-maadkii. Dalku waa Suuriya. Waa waqti aysan jirin qax, dhib, dil, kufsi, dhac, boob, midna aysan jirin. Oo dadku uu haystay nabad iyo xasilooni buuxda. Waxay ahayd magaalo yar oo u dhow Xalab ay ku noolaayeen reerkanu. Marka waqtiyada fasaxa ciyaalku waxbarashada ay ka yihiin ama shaqada ay fasax ka yihiin dadku waxay dalxiis u aadi jireen baadiyaha. Baadiyaha ma aha kii xoolaha lagu dhaqanayay reeruhu deganaa ma aha. Hawdkay iska tagaan teendhadoodii iyo waxay qaataan cuntadooda iyo waxay ku noolaan lahaayeen. Kadibna halkaasay teendha ka taagtaan reer walba ama intii gruubaha israacdaba maalin labo dadka qaar nus maalin bay ku maqnaadaanoo maalinka haafkiisa horena halkaasay soo joogaan kadibna guryahooda dib ugu soo noqdaan. Maalin maalmaha ka mid ah aabahan ciyaalkiisu waxay heleen fasaxa iskuulka. Kadibna wuxuu qorshaystay maadaama ciyaalku ay fasax yihiin inuu u kaxeeyo dalxiis hawdka geeyo halka teendho ku samaystaan maalin iyo laba soo joogaan waxay cuni lahaayeen ay hore u sii qaataan gaarigooda wax walba ay ku qaataan waxay cuni lahaayeen waxay ku seexan lahaayeen iyo halka waxay ku joogi lahaayeenba. Way soo tageen kaligood bay soo baxeen marka reera iyo waxba maysan soo raacin. Waxay yimaadeen hawdka. Marka hawdka dad badan baa yimaado oo sidiisaas oo kale nin walba kaligiis kaga soo baxayo. Wuxuu isku dayay marka aabahan inuu ka dheeraado dadka dhan si gabdhihiisa iyo xaaskiisu ay iskaga tiixtiixi karaan oo xijaabka iskaga dhigan karaan kaligood oo aysan dad badan iyo wax ugu dhex jirin waqtigooda si fiican ugu qaadan karaan. Geeda cidla abay teendhadoodii ka taagteen dab bay iska shiteen shaah iyo waxba iska karsadeen. Xoogaa markay meeshii joogeen marka 3 gabdhood iyo hooyadood meesha shaah lagu karinayay joogaan. Wiilkii iyo ka yar iyo aabihiisna waxay joogaan meel aan ka dheerayn oo iyaga ka yara durugsan laakiin wadda agtooda marta. Wadada agtooda maraysay baa waxa soo maray gaari ay wataan 4 dhalinyaro ah. Gaarigii bay istaajiyeen nimankii wiilashii cabaar bay reerka ag taagnaayeen oo fiirinayeen. Odaygu marka meel dheer buu ka arkaa. Way iska dhaafeen way iskaga tageen. Odaygu wuxuu u maleeyay dad inay raadinayaan reerkoodii ama dad dalxiis ah inay ku khaldeen buu u maleeyay oo kale. Way iska tageen cabaar markay moogaayeen bay dib u soo noqdeen. Marka ma aysan taginba nimanku. Markii u horeysay wadada mareenba waxaa hunguri ka galay dumarka meesha jooga. Marka gaariga waxay iska dhigeen wax tagay meel bay gaariga soo dhigteen kadibna waxay u soo noqdeen inay wiideeyaan odayga iyo gabdhaha iyo dumarkan meesha jooga. Odayga in rag kale la socdo in reer kale la socdo inta qof ay ka kooban yihiin. In badan markay wiideynayeen waxay ogaadeen odaygan iyo wiilka yarka ah iyo 4 dumarka ah kaliya inay yihiin. Cid kale iyo reer kale iyo wax u dhowna aysan jirin. Kadibna waxay soo aadeen odaygii bay soo aadeenoo odaygii markay xaggaas oo kale ka soo muuqdeen baa wuxuu yiri wuxuu iska gartay nimankan inaysan khayr u jeedin marnaba. Wuxuu isku dayay inuu soo dhaweeyo oo waxa la yiraahdaa af wax cunay xishoo inuu nin martiqaadaya iska dhigo oo soo dhawaada kaaleesha cabana la soo fadhiista halkeed ka timaadeen wax noocaas u yara waayeeleeyo. Marka waxay ku dhaheen suurtagal ma ahan bay ku dhaheen odayahu inaad 4 dumar kaliya haysatid. Annagana anagoo 4 dhalinyaro ah aan hal xabba haysan. Dumarka wax naga siibay ku dhaheen ku ag jooga. Cabaar buu la yara hadlayo mid kamid uu gartay marka 4 wiil mid kamid ah waxa dhalay sheekh weyn oo ah shuyuukhda magaalada ay deganaayeen ugu weynaa oo aad caan u ahaa. Muuqaal ahaan aabihii buu u ekaa inta badan aabihii baa masaajidka keeni jiray oo masaajidka uu soo raaci jiray. Marka wuxuu ku yiri adeer soo ina sheekh hebel ma tihid maxaa kugu dhacay shaydaanka iska naar. Marka kan sheekhu dhalay baa wuxuu yahay waa halkii Soomaalidu dhihi jirtay mas baa abur dhale. Kan sheekhu dhalay baa wuxuu yahay 3 nin ka hogaaminaya ee hormuudka u ah. Isagaaba wax walba kaas wuxuu dhahabay iyagu kale inta kale yeelayaan. odaygu wuxuu isku day ka u garanay inuu iska bariyo adeer maxaa kugu dhacay waa gabdhahaygii waa sharaftaydii waa kan wuxuu ku yiri
warka iska daayay laba mid dooruu ku yidhi inaan ku dilno oon adoon noo hibayn bada gabdhaha aan iska kaxaysanayo dumarka iyo in aan ku dayno ood gabdhaha iyo dumarkaana siiso odayga markuu baryo iyo tuugmo iyo wax kastaba ay ka dhamaadeen oo cid wax ka maqashaba u waayay wuxuu ku yidhi soo gabdhaha ma rabtaan haa gabdhahan idin siinayaa 3 gabdhood qaata laakiin wiilkayga yarka ah ee 6 jirka ah iyo xaaskayga ii daaya waxba iga yeelina waxay ku dhaheen waa yahay marka wuxuu ku yidhi hal codsi oo kala wataa maadaama gabdhaha doonaysaan inaad la bakhla tagtaan indha xumada anagu ma arki karayne aniga iyo wiilkayga yar iyo xaaskaygu noo ogolaada inaan halka idinka yara durugnoon xagga idinka yara aadno marka waxay ku dhaheen maxaad naga qabanaysaa de orad iska tag bax bay ku dhaheen odaygii gabdhihii bay iskaga jeesteen odaygu marka gabdhaha wuu u iljabiyay gabdhihiina way la fahmi waayeen oo waxay ku dhaheen aabo ha naga tagin way iska baroorteen way iska qaracmeen odaygii markuu islaantii soo qabtay gacanta iyo wiilkii yaraa uu maaga xagga inuu u kaxeeyo bay islaantii intay ka farabaxsatay ku tiri wax dhintay baa tahay nin raga ma tihid ka leexa nimanka aan ku jarna tagay walla gabdhahayga kama tago hoogayo ba'ay way bodbood islaantiyo odaygu wuxuu bilaabay inuu islaantii qabto xoog buu ku kaxeeyay odayga gaadhigoodii on meel iyaga aan aad uga dheerayn uu markii horeba soo dhigtay buu islaantii xoog ku galiyay iyo kii yaraayo gaadhigii buu ku xidhay qori baa gaadhiga u saarnaa odaygu maadaama hawd aadayo dadkana uu doonayay markii horeba ku talagalay inuu dadka ka yara durko hawdku wax walba waad kala kulmi karaysaa marka inaad iskaga talagashido hubkaaga hore usii qaadato waa iska fiican tahay iyadoon wax dhibaato ah jirin laakiin haddana bahal iyo xun baad la kulmi karaysaayo mar walba hub inaad iska wadato waa iska fiican tahay qorigiibuu soo qaatay shanqadhu ilaaliyay markuu nimankii usoo dhawaado mid walbaa gabadh intuu qabsaday uu kor taagan yahay xabadda ma doonayo si uusan u meeldayn inuu u rido maxaa yeelay gabdhihiisa meesha ku jira buu nimankii xabad u toogtay marka dhaawacyo yaryar buu gaarsiiyey lugta iyo gacanta iyo meelahaas xabadda kaga dhuftay si gabdhihiisa uusan waxba uga gaadhin gabdhihiisii buu soo kaxaystay 3 gabdhood xaggan buu marsaday wuu kaxeeyay ilaa gaadhiguu geeyey nimankiibuu usoo noqday 4tiiba u dhaawacay waxay ku dhaheen adeero waan ku baryaynaa hana dilin adeero iska kaaya cafi khalad baa naga dhac dhalinyaraan nahay kan way isku dayeen inay baryaan in badan wuxuu ku yidhi haddaad idil lahaydeen waxbay ahaan lahayd laakiin haddaad door bideen inaad sharaftayda maaragtay meel uga dhacdaan inaan idin daayo mustaxiil wuxuu ka toogtay madaxa 4toodiiba reerkiisii buu qaatay wuxuuna aaday magaaladu dib ugu noqday markiiba wuxuu wargeliyay booliska oo u sheegay wuxuu ku yidhi 4 nin baa martaa kusoo dilay hala soo aaso reerkoodii iyo dadkoodiina hala wargeliyo 4 nin askartii baa soo qaaday magaaladii baa la keenay baroortii baa isqabsatay waalidiintii iyo dadkii sababtii lagu dilayna dawuu sheegay sababta u dilayna in ay ku xadgudbeen oo gabdhihiisa doonayeen inay kufsadaan isna uu sidaa darteed u dilay waa la aasay nimankii sidii baa lagu aasay dhowr maalin kadib waalidiintii wiilasha dhalay oo ugu horeeyay sheekhii wiilkiisu ku jiray iyo sheekhyo kaloo badan odaygii waxay ugu yimaadeen gurigiisa kadibna waxay u sheegeen inay ka cafiyeen dilkii uu u geystay awlaadooda yacni aan diyana loo haysan oo dhiigna laga rabin aanana loo qabsanayn maxaa yeele waxay ku dhaheen haddaadan adigu dili lahayn oy dhici lahayd gabdhahaaga inay kufsadaan annagaa dili lahayn marka waxay ku dhaheen waan ku cafinay agtanada cafiyo musaamax baad ka tahay maxkamad iyo meel aan ku haysana ma lahan diye iyo dhiig iyo mag iyo waxaan kaa doonaynana ma laha odaygii 3 bilood bay adigu askartu xidheen oo dee ma waxaan is idhi ma aanaya wax noocaas si aan loo dilin miya ma garanayo 3 bilood bay xidheen odaygii 3 bilood kadib waa la soo daayo dee maadaama uu la cafiyeyo dadkii oo dhan iska wada cafiyeen odaygii waa la soo daayay innaga ta ina haysata ka Soomaali ahaan haddaba marka wax la kufsado reerka gabadha dhalay wax laga kufsaday iyo bulshada oo dhan waxay istaagaan hal dhinaca oo ah inay garab siiyaan qofka dhibaatada geystay ama kufsadaha gabadhan ay ku dhahan waa ceeb kufsi ha sheegin qari iska aamu shibdeh iyo in maaragtay xaal mastuur iyo qashin iyo wax noocaas ay ku dhameystaan haddii bulshadu gacmaha isqabsato oo qofka khalad geysta shareecada islaamka wax ka sareeya ma jirto kitaabka ilaahay waxa uu qabo qofka kufsi geysta lagu qaado oo intii dhashay iyo bulshadii iyo gabadha kuwii maaragtay dhalay iyo cid kastaaba maaragtay ay ka midowda taas ku qanacdo wiilkoodu hadduu khaldamo waxa shareecadu qabto in lagu sameeyo qof hadduu dilo hadda baryahan kaliya Soomaaliya kufsi kama jiro magayiga Soomaalidu degta si guudba kufsi kaliya kama jiro kufsi iyo dil marka kufsi kaliya hadduu ahaan lahaa dee xukun buu leeyahay kufsigu laakiin dil hadduu raaciyo qofkii wax dila waa in la dilo isagana
marka waxaan rajaynayaa bulshadeenu inay ku baraarugto inay ka baxdo dhaqankan iyo waxaan caadooyinkan qaabka daran ee ragaadiyey oo ay ku dhaqmaan diinta si dhab ah ugu dhaqmaan kitaabkooda waxa uu qabo qofkii dhibaato geysta in lagu qaado bulshaduna ay gacmaha isu qabsato ay u kacdo halkan haddaan isla soo gaadhnay ood sheekadan dhammaysatay waan kaaga mahad celinayaa muuqaalka haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo birto subscribe taabo wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsiya ama aad jeceshahay channelkan inaad ka aragto qaybta hoose ee faallada noogu reeb waana muuqaalka kan xiga insha allah nabadii caafimaad baan idinka tegay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu